السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتك kala duwan ee ku xiran warbaahinta Lebdow ku soo dhawaada wararkii dunida iyo Soomaalida qodobada ku daawan doontaan waxa kamid ah Soomaaliland oo wada qorshe dalkeeda lagu soo celinayo muwaadin hore gacanta lagu galiyay wadanka Djibouti oo ku eedeysan qaraxyo ka dhacay dalkaasi oo ku dhawaad 8 sano ku xirnaa jeelasha Djibouti. Dawladda Itoobiya oo shaacisay sawirada dhaamka biyo xireenka weyn ee Niilka ay ka dhistay oo ku dhow inuu buuxsamo iyo digniino hor loo arrintaas ay ka soo saareen wadamada Masar iyo Suudaan. Madaxweynaha wadanka Mareykanka oo ka hadlay talaabadii uu dalkiisu ka qaadayo dalka Sacuudiga kadib eedeymihii CIA Mareykanku ay ku shaaciyeen in dhaxal sugaha Sacuudigu uu bixiyay amarka dilka wariye Jamal Khashoggi. Sidoo kale waxa ku daawan doontaan ciidamada booliska wadanka Itoobiya oo sheegay inay qabteen gaadiid iyo hub tiro badan oo si sharci darro loo soo geliyay caasimada wadankaasi Addis Ababa iyo qodobo dheeraad ah ayaad ku daawan doontaan oo diyaar garooba yagii oo faahfaahsan. wagaag daawadeen ku bilowno Soomaaliland ayaa wada qorshe dalka dib loogu soo celinayo muwaadin ku dhawaad 8 sano ku xirnaa wadanka Djibouti kaasi oo ku eedeysna qaraxyo kala duwan oo ka dhacay wadankaasi sanadkii 2012 kadib markii madaxda Soomaaliland iyo wadanka Djibouti ay ka wada xaajoodeen kiiska wiilkaasi ku xiran 8 sanadood wadanka Djibouti. muwaadinkan oo lagu magacaabo Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo muddo 8 sanadood ku jira xabsi ku yaala dalka Djibouti ayaa sanadkii 2014 Hargeysa laga qabtay isagii dad kale kuwaasi oo la xiriirinayay qaraxyadii ka dhacay wadankaasi balse keligii ay xukuumadii Soomaaliland xilligaasi jirtay waxa ay gacanta u gelisay wadanka Djibouti iyadoo oo laga reebay dadkii kale la xidhnaa kuna eedeysna qaraxyadaasi sida ay sheegtay hooyadii oo lagu magacaabo Faadma Ciise oo warbaahinta la hadashay 15 bishii Juun ee sanadkan ka soo gudubnay ee 2020. talaabada Soomaaliland ee la soo wareegida muwaadinkan oo in badan shacabka Soomaaliland ay dawladooda ku dhaliilayeen inay dal kale gacanta u gelisay muwaadin dalkiisa jooga ayaa waxa la sheegay inay ka dambeysay kadib markii taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sarreeyo guuto Maxamed Aadan Saqadi dabagala uu wada xaajood kala yeeshay madaxda dalka Djibouti gaar ahaan taliyaha booliska wadanka Djibouti Colonel Cabdullaahi Cabdi Faarax oo dhawaan kulan uu ku dhaxmaray dalka Djibouti. dawladaha Soomaaliland iyo Djibouti ayaa waxay dhaw xilligaasi kala saxiixdeen heshiis dhanka amniga ah gaar ahaan dagaalka ka dhanka argagixisada iyo isku gudbinta dambiilayaasha maadaama ay labada wadan xuduud leeyihiin. muwaadinkan haatan la qorsheenaya in dib loogu soo celiyo wadankiisa ayaa xukuumadii Soomaaliland ee xilligaasi jirtay oo hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa ay gacanta u galiyeen wadanka Djibouti kadib eedeymihii kaga yimid qaraxyadii ka dhacay wadankaasi. waatay dawladdan ku socono wararkeena wasaaradda biyaha waraabka iyo tamarta Itoobiya ayaa daabacday jimcihii muuqaal cusub oo dayax gacmeed oo muujinaya horumarka ka socda dhismaha biyo xidheenka weyn ee wali muranka xooggan ka taagan yahay ee Niilka. sawiradan dayax gacmeedka lagu qaaday ay baahisay dawladda Itoobiya ayaa waxa sidoo kale ay muujinayaan in kaydka biyo xidheenka weyn ee Adama uu ku dhow yahay darbiga weyn ee loo xidhay biyo qabashadu inuu buuxsamo taasi oo ah wajiga ugu dambeeyay guusha ay Itoobiya ka gaadhay muranka qulqulka biyaha Niilka ee lagu diidan yahay inay ka sameystaan biyo xidheenka taasi ay si weyn uga soo horjeedaan dalalka ay wadaagaan biyaha wabiga ee Masar iyo Suudaan. waxaana buuxinta dhaamkan dhamaystirkiisa ay ka hadheen bilaha kooban ay Itoobiya u qabatay inuu ku shaqeeyo ay ku soo beegmaysa xil ay digniino kala duwan Itoobiya ay u soo dirayaan dalalka Masar iyo Suudaan kuwaasi oo ka digaya in aanay Itoobiya ku dhaqaaqin dhaaminta dhaamka ilaa heshiis saddex geesood laga gaadhay qaabka awood qaybsiga marin biyoodka wabiga Niilka. 6 bisha February ee gabagabada wasiirka biyaha waraabka iyo tamarta ee Itoobiya Salasha Bakayle ayaa xaqiijiyay in 78% dhismaha biyo xidheenka weyn ee Grand Ethiopian Resource Dam la dhameystiray wuxuuna sheegay in horumarka la gaadhay 6 bilood ee la soo dhaafay uu yahay kii ugu dhaqsiyaha badnaa tan iyo markii la bilaabay dhismaha biyo xidheenka khilaaf ku hareeyay hindisiisa. Bakayle waa wasiirka tamarta iyo waraabka biyaha Itoobiya wuxuu ku celiyay sida dalkiisa ay uga go'an tahay inuu dhameystiro wajiga labaad ee biyo xidheenka bisha July ee soo socota iyadoo aan loo eegin heshiiska ama la'aantiisa ee la gaarayo wadamada hoose oo uu jeeday wadamada ay ku muransan yihiin biyahaasi. buuxintii ugu horeysay ee biyo xidheenka dhererkiisu dhan yahay 145 mitir ayaa waxa ay bilaabantay bishii July ee sanadkii aan soo dhaafnay waqtigaasi oo xukuumadda Addis Ababa ay ku andacootay in buuxinta dhaamku ay ku timid kadib roobab waaweyn oo mahigaan kuwaasi oo ka da'ay dhulka buuraleyda sare ee dalka Itoobiya taasi oo sabab
noqotay in dhaamku ay soo galaan biyo badan oo ka soo qulqulay webiga Niilka. Labada dal ee Masar iyo Suudaan waxa ay ku baaqayaan cawaaqib xumo ka dhalan karta buuxinta iyo ka shaqaynta biyo xidhanka weyn ee ay ku baxeen 4.6 bilyan oo dollar. Sababta waxa ay ku macneeyeen madaxda labada dal saameyn uu ku yeelan karo dadka dalkooda oo si weyn ugu tiirsan manaafacaadsiga biyaha webiga Niilka ee ka soo bilaabma buraleyda sare ee wadanka Itoobiya. Aan ku socono dawdeel wararkeena kale safiirka Myanmar ee qaramada Midoobay ayaa shaqada laga cadhiyay sida uu ku waramay telefishinka dawladda Sabtidii maalin kadib markii uu ku booriyay qaramada Midoobay in ay adeegsadaan wax kasta oo daruuri ah si loo joojiyo afkambiga militari ee dalkaasi ka dhacay horaantii bishan. Wadanka Koonfurta Aasiya ayaa ku jira xaalad tan iyo markii militarigu ay la wareegeen awoodda 1 bisha February ayna xireen hogaamiyihii dawladda rayidka Aung San Suu iyo in badan oo kamid ah xisbigeeda kadib markii militarigu ay ku andacoodeen in doorashadii la qabtay bishii November ee sanadkii aan soo dhaafnay ay ahayd mid musuqmaasuq ah. Guddiga doorashada wadankaasi waxay dhankooda ku dhawaaqeen in codbixintii dhacday bishii November ee sanadkii 2020 ay ahayd mid cadaalad ah. Kyaw Moe-Tan wuxuu u sheegay golaha guud ee qaramada Midoobay inuu ka hadlayo magaca dawladii meesha laga saaray ee rayidka ahayd ee Aung San Suu. Waxaan u baahanahay ficil kale oo xoogan oo macquul ah oo ka dhana bulshada caalamka si dhaqso ah si loogu joojiyo afkambiga militari ayuu yiri Jimcihii maruu ka hadlayay golaha ammaanka ee qaramada Midoobay. Kadib wakiilka qaramada Midoobay ee dawladii rayidka ahayd hadalada uu ka horjeediyay golaha ammaanka waxa dawladda militariga dalkaasi ay TV-ga ku hadla afka xukuumadda militariga laga dhawaaqay in wakiilkii qaramada Midoobay u joogay Myanmar uu khiyaamay dalkiisa isla markaana uu ku hadlay afka urur ama koox aan matalin dalka Myanmar kuna xadgudbay awoodiisii safiirnimo. Ergeygaarkii qaramada Midoobay oo qaabilsan Myanmar Tom Andrews ayaa sheegay goor hore oo Sabti ah inuu ku kacay safiirku ficil geesinimo leh isagoo raaciyay waa waqtigii adduunku uga jawaabi lahaa baaqa geesinimada leh ee uu ku dhaqaaqay. Dhinaca kale wakiilka Shiinaha oo loo badinayay taageersiin afkambiga ka dhacay wadankaasi ma uu dhaleecayn afkambiga ay sameeyeen ciidanka wuxuuna sheegay in xaaladdu tahay mid gudaha Myanmar isagoo intaasi ku daray in Beijing ay taageerayso dadaalada diblomaasiyadeed ay wadaan wadamada Koonfurta Bari Aasiya si xal looga helo dhaqaaqyada militari ee ka socda wadankaasi. Generaalada militariga ee afkambiga ku qabsaday wadanka Myanmar waxa ay dhaqan ahaan iska fogeeyeen cadaadiska diblomaasiyadeed. Shirkadda Australian ee loo yaqaan World Petroleum ayaa sheegtay inay ka goynayso joogitaanka dalkeeda walaac ay ka qabto ku tumashada xuquuqda aadanaha. Waa tahay daawadayaal wali waxa daawanaysa warbaahinta Libdo hadaan ku socono wararka kale adiinana madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay Isniinta berri in uu maamulkiisu ka hadli doono xaaladda Sacuudiga kadib warbixintii ay soo sareen sirdoonka wadankiisa Mareykanka ee ku saabsaneed in dhaxal sugaha wadanka Sacuudiga Mohammed bin Salman uu amray qorshihii lagu dilay wariyihii u dhashay wadanka Sacuudiga ee lagu dilay wadanka Turkiga ee Jamal Khashoggi. Madaxweyne Biden wax laga weydiiyay su'aasha ku saabsan in tallaabo laga qaadi doono Mohammed bin Salman iyo in kale waxa uu ku dhawaaqay isla markaana si cad u sheegay in Isniinta beritola uu wadankiisu war rasmi ah ka soo saari doono waxa uu wadankiisu ka yeelay Saudi Arabia. Madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden wax faahfaahin oo intaasi ka badan kama uusan bixin waxyaabaha ay ka hadli doonaan ee ku aadan dilka Khashoggi. Sabtidii ayay ahayd markii sirdoonka Mareykanka uu sheegay in amiirka dhaxal sugaha ee Sacuudiga Mohammed bin Salman uu ansixiyay dilka wariyaha qurbajooga ee Jamal Khashoggi kaasi oo dalka Turkiga ka dhacay dilkiisu sanadkii 2018. Warbixinta sirdoonka Mareykanka ayaa waxa lagu sheegay in dhaxal sugaha Mohammed bin Salman uu kooxdii dishay wariyaha ku amray inay soo qabtaan ama kharajiyeen sidaasna lagu kharajiyay wariyaha Jamal Khashoggi oo ku canaha dhaleecaynta xubnaha sarsare ee boqortooyada wadanka Saudi Arabia. ugu dambeynna daawadeel ciidamada booliska magaalada Addis Ababa ee caasimadda wadanka Itoobiya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen hub fara badan oo nooca fudud ah kaasi oo si qarsoodi ah loo soo geliyay magaalada kadib markii ay ka warheleen hubka hay'adaha amniga. Warbixin ay soo saareen booliska Addis Ababa ayay ku sheegeen in hubkan lagu soo dhex qariyay gaari loona eekeysiyay agab loo soo eekeysiyay budal la shiiday waxaana hubkaasi ka koobnaa sida ay sheegeen booliska BKM iyo bastoolado iyo 4,000 oo rasaasta kala duwan ah. Saraakiisha booliska Itoobiya ayaa sidoo kale tilmaamay inay gacanta ku dhigeen 2 nin oo u gudbinayay kala geliyay magaalada Addis Ababa isla markaana waxay xuseen in hubkaasi uu yahay mid sharci darro ah hase yeeshee ay ka hortageen laamaha amnigu. Hubka la qabtay ayaa isugu jiray 2 BKM 38 bastooladaha waaweyn 25 bastooladaha yaryara 5,992 rasaasta qoriga ah kaha 898 rasaasta bastooladaha qoriga iyo sidoo kale miinooyin ayaa lagu yiri warbixinta. Saraakiisha amniga magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya ayaa shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga magaalada si
looga hortago waxyaabaha sharci darrada ah ee la soo gelinayo gudaha caasimadda waddanka Itoobiya Addis Ababa. Tan iyo markii khilaafaadka siyaasadeed ay ka dhaceen gobolka Tigray ee waddanka Itoobiya isla markaana ay isku beegsadeen dowladda federaalka Itoobiya iyo sidoo kale jabhadii TPLF ee maamulaysa gobolkaasi waxa Addis Ababa iyo sidoo kale gobolada kale ee waddanka Itoobiya lagu qabanayay hub kala duwan kuwaas oo loo maleynayay inay magaalooyinka caasimadda Addis Ababa iyo magaalooyinka kale ee waddankaasi soo gelinayeen kooxda TPLF oo la aaminsan yahay inay weli leedahay xidhiidh waaweyn oo gudaha waddanka Itoobiya. Waa hagaag dawlad gudaha intaasi waxaan ku soo gabagabaynaa wartabinteeni warbaahinta labdha warka xigeenna kulmi doono waa anigoo idin leh nabadgelyo.